waxaa ugu dambeeyey in magaalada gudaheeda dagaal ba-an maalmahana ku socday gaar ahaan haddana waxaa laisku haysta waxa weeye afaafaha hore magaalada Sanca oo laiskala baxay magaalada gudaheeda guriga madaxweynaha Saalaxna la qarxiyey aeroboortka iyo wasaaradda arrimaha dibaddana dagaalku uu si xoog leh ugu sii filayo wararku waxay sheegayaan wararka qaar aan la hubin weeye in madaxweyne Saalax halka uu ku dhintay halka qolo kalena ay leeyihiin weli madaxweynaha lama xaqiijin inuu dhintay marka ilaa hadda war cad oo ku sugan oo marka laga hayo geerida madaxweynaha ma jiro marka wararku waa hordhac ay isku soo dhacayaan kolley guryaha la qarxinaya maalmahan way socdeen oo miina baa lagu qarxin karaa guriga laakiin inuu guriga ku jiray madaxweynaha iyo in kale ayaa la rabaa su-aal la isweydiiyo xisbiga oo ka taliyo Sanca oo gaar ahaan darafkan garab iyo madaxweynaha waa xisbiga loo yaqaano mu'tamar shacbi waxay leeyihiin madaxweynuhu guriga uu ka baxsan yahay asagaaba ciidanka hogaaminayo dagaalka socda way afeefaha magaalada Sanca banaankeeda gurigu waa shacbi ahaan markaan laakiin guri madaxweynuhu joogo ma ahan waxaad markaa ka warantaa duqeyntu ilaa iyo hadda ma socotaa iyo dagaalka iyo iskahorimaadka mise waa mid goos u dhacay bal waxaad maqlaysid duqeyntu waa mid Sacuudiga wadi jiray way socotaa markaana waxaa la yidhi Saalax ay gacan ku siinayaan mas-uuliyiintii ayaa lagu yara garaacaya dhinaca way ka socotaa hawada sare gudaha dagaalku waa ka socdaa oo dagaal safa weeye weliba gaar ahaan xaafadaha Sanca meesha qabiilka uu dego qabiilkan la yidhaha Xaashid uu dego qabiilkan gacansaarka la leeyahay maxaan ku rahdaa Saalax ayaa weerar ku haya xuutiyiinta waayo xuutiyiintu waa niman shabhada oo ka yimid magaalada Sacda Sanca wax qabiila ah xoog uma degana marka dagaalku gudaha ayuu ku qabsaday xuutiyiinta marka mana ka bixi karaan mana sii wadi karaan gudaha awood kale kuma lahan maalmahan xabadda way qaboobeed xiisadu inkastoo mar waliba uu dagaal ku dhex jiray dalka Yemen tan iyo 2015 haddana maalmahan way degneed maxaa hadda soo kiciyay baa la leeyahay dabcan kulli madaxweynaha maanta uu hadlay guriga madaxweynaha iyo masjidkiisii dad taageero u ah ayaa xuutiyiintu gudaha u galeen oo qaarkood ay dileen marka madaxweynuhu fariin buu diray oo xisbahaysiga carbeed inuu la heshiinayo ayuu eelaamiyey marka xuutiyiin taasay ka xanaaqeen dagaalkana kaasa ayaa awoodda gacan siisay oo soo laba kaclinta qayb weyn ka qaadatay marka hadda labada dhinac maxaa la sheegayaa halka ay kala marayaan meelaha ay kala joogaan waxaad carabka ku dhufatay in Cali Cabdalla Saalax oo warbaahinta qaar ay sheegayaan in uu ku geeriyooday dagaalkaasi inuu qayb ka hogaaminayo dagaalka marka dhinacyada la kala joogo iyo inta ay la eg tahay xabadda dhacaysa quwadeeda dagaalku hadda magaalada asaaskeeda isla maraya wararku waa ugu dambeeyeen wasaaradda arrimaha dibaddana waxaa haya ciidanka Saalax baa haysta ninka la yidhaahdo Sheekh Saalax inuu ciidanka hogaaminayana waxaa sheegtay xisbigiisa mu'tamar la yaqaano shacab loo yaqaano laakiin geerida Saalax weli warkaas waxay leeyihiin waa gayru macluum war la hayo hadda sugan ma ahan qaybta wararka caalamiga iyo saafaytaris ay baahinayaan marka gadaal warku ka soo dhici doonaa asagoo xadiira xisbiga taageerana wuxuu oranayaa weli madaxweynuhu muusan dhiman dagaalka isagaa hogaaminaya sidaas hadda warku ay waaba anfiyeen waabay diideen oo ku gacan saareen in dagaalkaas oo ku dhintay marka maxay sheegayaan idaacadaha kale ee aan taageersanayn Cali Cabdalla Saalax idaacadaha kale waxay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu ku dhintay guriga lagu qarxiyey sidaas bay hadda iclaaminayaan oo wararkii dilka iyo sawiradiisii gurigii ay soo bandhigayaan marka xiisadda markaad fiiriso maxaad ku cabiri kartaa ugu dambeyntii Xasan Albasri wallahi taqriiban waxaan isleeyahay saanada sare kama qodna waayo qabiilkan oo ka dhintay Sheekh Saalax oo qabiil xoog badan in argos ay samayn doonaan baan dareemaya xuutiyiintu gobolkan uma dhalan sacad waa niman kor ka yimid waa niman jabhada milisiya waa niman kusoo gambaday kacdoon noocaasa in magaalada hadda iyo dagaal sokeeye kow bilaabi doono oo bilaabanayo sidaas baan qiyaasi doonaa Sacuudigana uu gacan siin doono isbahaysigaas qabaa'ilada odayaasha hogaaminayaan haddii uu dhinto odagan Yemen xaalad mugdiga ayay geli doontaa waayo odagani waa oday culus oday sahlan ma ahan waa oday waxa weeye khabiir ah oo wadanka wax badan soo xukumi jiray marka haddii uu tago Yemen xukmi weyn ama tiir weyn baa ka dhacay